الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بقى مهضلة أنه ما أنت جوجنا مساجد جامع المغفرة وكوية اللبورة مساجد كاسو مدول لبس سنة قياستي السعودي بسكيسو ما أنتنا أن مرينه من نارده مسكيتك تيك هو أدبان مرينه ومن نارداسي أي نوم رئيسي من قياستي 6 متر أينا نور ديمان تاي 10 متر وكله وأول بقى تبرعات كاسي نقلا قيب قاتين ومدة محسنين تاي مسلمين تعمل كستب أي شوغان ما أنت نباقي أولا ندير جرنين بالليك بانديرينا عدي نقلا قيب قادنا إيسا وحن لينا هاي مسايد كيواد أركيسان هالكا ومرايو سيدي أول بقى نقلا قيب قادن جرتين تبرعات كينا dadka muxsiniinta ah waxaan ilaahay niga rajaynaynaa inuu bedel jannada inigu bedelo guriga dhisteen guriga ilaahay waxaan aad iyo aad inigu guurinaynaa inaadna dhiiri gelisaan oo nagala qayb qaadataan tabarucaadkii masaajidka aan ku dhisaynay minaaradaha iyadoo oo kulli toolo laga dambeeyo loo joogo waxaan aad iyo aad inigu mahadnaqayaa ciddii hore noogala qayb qaadatay مساجدكن أي كم إذا هاي نيجي نقول بحيي يا قبردي نديري جلسة عشاء هذن هذه أدبن نقوم هالنقينا أيضا حتى أنا مدرسة بنكون ترى أي مكتري لكن من نارده هو السودان حتى قانتي هو ولي وحبال ليه لكن ولي هو وضنا وركوا حنيا هيك رجينا إن أنت هدي عندك على قريب قادتان أو ديسكيسة من نارده هاسي aad sida ugu degdegsiyo badan leh noogala qayb qaataa hadii aan ka hadlo qiimaha ay minaaradii midiiba ku kacayso midiiba waxay ku kacaysaa $17,000 imika qiyaastii lacag $4,000 $5,000 aan gelinay $12,000 way u dhiman tahay minaaradda tii kalena $17,000 oo sideedii u dhiman marka waxaan inaga rajaynaynaa إلهي أكتيسه وحنا قيمة عين كاسة كمالة دقال العقد بدلنا معها عدة إلهي وفديدية إن السيدة أقول خصها بدلنا نقال قيب قاتان وأي نوسع عويان تبرعات كاسي أيان نجر الجينية بسم الله الحمد لله كفى به محنك إلهي بقى جهرين محنكنا مهندس كله إنه وافتشيه إن محنك رحمة أنت يسوون من مسجد المغفرة أورنتي محنك رحمة دام يستلم عد كاستا أو كغيب قادة اسمه مساجد كنا إلهي سبحانه وتعالى وحنك رجيننا إن ماشي كسر صارين هي مالنتا محنك رحوية دنبه إلهي سبحانه وتعالى وميزان كود حسنات كوجدرة يعد كسر كشقيسي أو كغيب قادتين محنك رحوية أباب الكير اسمها مساجد ما أنت واحد نشوفنا محنك رحوية مساجد كي وحا محنك رحوية عندنا هنا إنه محنك رحوية شجنا ومدة محسنين تا خير كتشعل وحنا الدنيا اللي رادي علمنا كله محنك رحوية نوشيك دونت إن شاء الله تعالى wax qiimo ilaahay ma jirtaa haba yaraatee meelo badan baynu wax ku bixinaa oo aan maxaan ku raxay fi aakhirada maxaan ku wax badan oo khayri naga soo galaynin laakiin tan waa masaajidkana runtii meelaha dadka muslimiinta ay aad iyo aad isugu waafaqsan yihiin oo maxaan ku raxay khayrkooduna aad iyo aad maxaan ku raxay u farabadan yahay ilaahayna subxaanahu wa ta'aala abaal weyn lagaga helay kamid tahay marka waxaan idinku baaqaynaa dadkiini walaalaha ahaa ee muxsiniinta ah ee masaajidkaas maqfira wax soo gashaday inay maxaan ku wixii aad soo dirteen gacan aamina oo wanaagsan ay ku dhacday masaajidkiina sidiisii u dhameystiran yahay waxaad ka arki kartaan muuqaalada maxaan ku raxweeye saxaafadda ee gudihiisa maantana minaaradii baa la joogaa minaaradu soo ladin sheegay maxaan ku lacagtaas oo imaamku sheegay ayay maxaan ku baxaysa waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa cid kastoo khayrka jecel inay nagala qayb qaadato dhismaha masaajidka hadday tahay ganacsatada hadday tahay maxaan ku raxweeye bulshaweynta meel kastoo ay joogaan alxamdulillahi rabbil caalamiin bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هلا يا ولا الله المسلمين تعمل كسليت شو جنبه. وحنا هلا يا ضدك درين كله. هذا مخصنا يا. ضدك جرنا يا قيمة مساج كولية. وحنقارو له هلا يا ضدك دبعت هيسن. مروجة يقول والكوه وكهيست أولاده. أما اللي بدأ الزوجة يسقبه بروبلم كي دبعت هذا هيسن له. waxyaalaha ugu waaweyn waxaan xasuustaa gabadh baa mar kastaba lacag bay igu soo hagaajin jirtay waxa oran jirtay maanta mashaakil baa haystay qof dhibaataysan raadiyo lacagta u geey
dabeetana ilaahay xaajadeeda ayuu dhammaystiri jiray marka waxaan qabaa maaragtay qof kastoo masaajidka ilaahay wax ku caawiya inuu ilaahay faraj ku siinayo ilaahay inuu ilaahay caafimaad ku siinayo ka xidhan ee awlaadiisii ka xidhaya inuu ilaahay ku sii daynayo niyadun baa loo baahan yahay marka walaalahayo niyad ku bixiya u hura masaajidka ilaahay waxaad ka helaysiin waxyaalo aad u fara badan ayaad ka helaysiin waxaan leeyahay soo gurmada naftiina u gurmada ilaahay wuxuu la baxa faraj baad helaysiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalbay ma arkay ma joogo waxa kale haato anigu dadka oran lahaa dhiirigelin walaaltinimo xaafadan deganahay anigu guryo fara badan oo qurux badan baa ka dhisan dadka ku jira guryahaasi waa wada muslimiin weeyaan kana waa gurigii ilaahay kuwa quruxda badan la dhaqsaa loo dhisaa markaaba way dhammaadaan oo dadku ay dhisanayaan warkan ilaahay aynu isugu tagno waa beydkeennii ifii aakhiraba maxaan ku idhahdaa quruxdiisa iyo qaabkiisa iyo maxaan ku idhahdaa waa laynagu leeyahay guryahan quruxda badan leh faraha badan leh waxaan u malaynayaa wax aakhira inoo raacayaa way yar yihiin kabayna raacaya wuu soo dhammaaday culimmadu way soo dadaaleen wax fara badan bay soo qabteen cidi uguma tegin iyagunbaa la rafaado oo halkaa jooga oo mu'adin iyo imaam iyo wax walba iyagunbaa marka walaalayaal aynu kala qayb galno aan kala qayb galnaa gurmad weeyaan wax maaha maxaan ku idhahdaa amaah iyo bariye fara badan iyo kuma soconayo ummaddu ha isdhibto ha ku dhaqaaqdo qof walba maxaan ku idhahdaa waxaad hadduu yar yahay hadduu badan yahay masaajidkii waa gebagebo quruxdiisa waad aragtaan annagaa ku tukanna gudaha quruxdiisa waad yaabaysaan waa 2 minaaradood aynu dhammayno in yar bay noo hadhay ilaahay idinkii insha allah saas maan anigu maxaan ku idhahdaa intaan baan anigu ku darsan lahaa haddii الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم horta sheekh baa hadashay waxa weeye wax laga hadlo oo anigu imka ugu noqdo ma garanayo waxaan si ahay gudida masaajidka waxaan anigu idin ballan qaadaynaa horena idinku ballan qaadnay wixii aad soo gaarsiisaan ee ilaahay dartii ula baxdaan annaguna inaan gelinna halkii ay ku habboonayd ee ay lahayd maantana waxaan ka hadlaynaa waxa weeye minaaradihii masaajidka mid waa taas waxa noo maraysaa 8 mitir tii kalena waa noo baaqi waxa weeye masaajidku dama dhamaanayo qaybtiisa kalaba way hadhay waxaan seen idinka codsanaynaa ama aan muxsiniinta la weydiisanaynaa inaad si degdega noogala qayb gashaan oo aad noogu soo dirtaan wixii walba noo soo dirayseen idinkunbuu idin ballan yahay masaajidkaasi cid uu leeyahay oo lagu halayn karaa ma jirto oo muslimiinta ahayn dibad iyo gudaha meel ay joogaanba waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu kaalmaysaan dhismihiisa oo nagu garab gashaan annagana aad niyadna siisaan oo aad nagu dhiiri gelisaan sidii aanu dhisi lahayn waxa weeye muxsiniinta intii hore uga qayb gashay waanu mahadnaqaynaa inta dambe keeni doontana waanu mahadnaqaynaa dhammaan muslimiin oo dhan waanu mahadnaqaynaa waxaan leenahay nacaawiya oo nagu garab galo guriga ilaahay annagu malihin ilaahay baa leh ciddiina ma jirto nin kasta oo ka qayb galana jannadaan ugu bishaaraynaynaa ilaahayna ha siiyo aan leenahay janno guri jannaha uga dhiso ilaahayna ha caawiyo wixii uu tabanayba ilaahay ha siiyo alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam dadka muslimiinta maaragtay muxsiniinta dhammaantood waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxa weeyaan oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal maalkaa aan isweydiisanayno waa maal ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala ilaahay baana ina siiyey ilaahay baanan dartii kula baxayna oo ilaahay wuxuu leeyahay man da alladii yuqridu allaha qardan xasana كان إلهي سبحانه وتعالى أماذا قالقا نو باققا يعني مارتي نو سعنيسا إلى قيام الساعة إنان يعني مارتي إلهي أقدقنو أيها الله مارمانا marka waxaan leeyahay dadka muxsiniinta walaalayaal niyada wanaagsan iyo yani maaragtay himilada wanaagsan inagana geliyay inagana yani maaragtay arintaasi aad nagu dhiiri geliyay imikana waxaan leenahay halkaad ka soo bixiseen ilaahay subxaanahu wa tacaala haynigu bedelo maaragtay wax ka khayr badan waxaad haysaanna allaha inii fudaydiyo jamca meesha jooga dhammaantoodna waxaan leenahay yani maaragtay iyagana ilaahay dembi dhaaf iyo maqfira ayaan u weydiinayaa dhammaan muslimiintana dembi dhaaf iyo maqfira ilaahay weydiinayaa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما أنت واحد شوقنا مساجد مسجد مغفرة ومساجد هذا كهر مرر بدن إن كهذا لأنه يسقوا بنان أو بلوة أو دسميس أو بلو يهي
oo aan la hadlaynay dadka muxsiniinta inay ka soo qayb galaan dibad iyo gudaba. marka hore aad iyo aad baan iga mahadnaqaynaa jawaabtii aad ka bixiseen masaajidka dhismihiisa iyo khayrka aad ka qayb gasheen oo aad iyo aad dadkuna ay nagu soo duceeyeen guddida masjidka iyo xaafadda dadka degan iyo in allaaliya cid kastoo aragtay masaajidkan sida wanaagsan u qurux badan sida wanaagsan u dhismay. masaajid aad iyo aad u weyn baa ka dhismay runtii oo lagu farxo. waxaad gashateenna weligiina uu niin soconayaa, waa sadaqa jaariya weeye. sadaqaadka jaarigiihina dee weligeed way soconayaan, qofka way u soconayaan. waxaa la taagan yahay iminka oon maanta iskugu imanay masaajidka qurxintiisii weeye, in masaajidka uu wanaado xaafadaha iyo guryaha oo la arka masaajidkii meesha ka dhisan oo dadku ay eegtaan. inaaraduna waxay ka mid yihiin calaamaadka masaajiddu ay leeyihiin bay ka mid yihiin. waxay soo galayaan uun masjidka dhismihiisii bay soo galayaan iyo tacmiirkiisii iyo qurxintiisii. إلهي وحليه سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عميردي مسجد كاية كمتاي وحنا لنا هاي مركلة مساجد كقرحنتيسي يردم يستركيسي أيام كوباقينا إذا الله لي عدنا مقليسة ودبدي يقول بجوكت وحنا لنا هاي إلهي هرتي وحلبها وكسر قريب قال إن شاء الله تعالى مساجد كاسميسي. waxaad ogaataa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay man banaa masjidan qofka masaajid dhisa, man banaa lilaahi masjidan qofka ilaahay dartii masaajid u dhisa, masaajidkaasi haba noqdo wax yar. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo qaaday cuf shimbireed, yani cuf shimbireed oo wax aad u yar, xataa cuf shimbireed wax la eg ba ha noqdee, yani qofka gashada masaajid ama intaa in la eg, yani waxa weeyaan marka la leeyahay waxuun gashada baa la leeyahay. sida ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala faman yacmal mithqaala darratin khayran yarah waman yacmal mithqaala darratin sharan yarah. marka qofku inuuna yaraysan waxa uu bixinayo oo ilaahay hortiisa u bixinayo, mar hadduu niyad wanaagsan ku bixiyo ilaahay subxaanahu watacaala wuu u laban laabaya, ajir aad iyo aad u badan ayuu ka helaya. waxaa laga yaabaa xabad jaajuur oo geliyey qofkaasi oo ku darsaday masaajidka ama dhagax oo ku darsaday inuu ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkiisa uu kaga badbaadiyo oo janno uu ku geeyo. marka إلهي سبحانه وتعالى درتي قفك مسجد ودسا إلهي سبحانه وتعالى آخره أي مساجد أو قدسيا مركا وحن لنا هاي دبدي يقولبا أنت أنا مغليسا كسر قيب قال مساجد كدسميسا. وجزاكم الله خيرا. إلهنا سبحانه وتعالى وحن يقبرينا ميزانك حسنات كأنه نقدره خير بدلنا تكلي دونتان وحن كوكل صورنا هاي قد إذا مساجد كشقيسا مساجد كعنتا كوهايا أفر يلا وتنك ساعة ويتاجيهين iyaga ayaa bixiya shidaalkooda gawaarida iyo waxa oo dhan iyaga bixiya. sida uu sheegay Ismaaciil Xaaji Ismaaciil uu sheegay waxa weeyaan waan ku kalsoonahay runtii lacagtaasina meesheeda galaysa. soo degdeg oo khayr ka soo qayb galo. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada ka joogtaan. waxaan ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan Maxamed Shiine waxaan idinka kala hadlayaa magaalada Boorama gobolka Awdal. waxaan hor joognaa maanta jaamicul maqfira masjidka la yiraahdo oo ah jawaamicda ku taala xaafaddan Sheekh Ali Jawhar oo in badan aad ka daawateen telefishinnadan caalamiga ah aan idinka soo bandhignay inaad tabarucaadkiina iyo sadaqaadkiina ku bixisaan. jazakumullahu khayran. dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama gudaha ama dibadda ayaa masaajidkan dhisay ka qayb qaatay, hanti badan baa ku baxday. ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala an yajcalaha fi miisaani xasanaatikum yowma alqiyaama. ilaahay inuu xasanaadkiina ku daro maalinta qiyaame, wa khaasatan dadkii dhulka bixiyey iyo gabadhii Caasha Aadam ee bilowga lahayd ilaa maantana daba socota. ilaahay ha ka abaalmariyo intii kale ee markaa ka qayb qaadatay ilaahay dartii masaajidka uga qayb qaadatay. maanta masaajidku wuxuu marayaa xaaladiisii gabagabada ahayd insha allahu tacaala. ma odhan kara gabagaba laana masaajidku wuxuu usii baahan doonaa in dusha la dhiso oo dabaq labaad la saaro. waxyaabo badan buu usii baahan doonaa leanna xaafadda uu ku yaala xaafad aad u dad badan weeyaan, aadna loogu baahan yahay. waxa walaalkeen Sheekh Cabdikariin noo sheegay masaajid inta labada minaarood hadda ku baxaysa in 34 kun tahay insha allahu tacaala. wax badan maaha. ilaahay wuxuu leeyahay fastabiqul khayraat, khayraadka u degdeg u leh rabbi subxaanahu wa tacaala. marka khayraadka aan u degdegayna bay ka mid tahay. allah wuxuu leeyahay wafcalul khayra lacallakum tuflixuun. khayrka mar walba sameeya macnaa waxa waad ku liibaanaysaane. marka liibaantii baa halkan taalla.
ilaahay subxaana wa tacaala dartii u soo kaalmeeya masaajidkaas u soo tartama wax ku soo bixiya waa wixii aakhira aad u horumarsanayseen macnaa maalkaaga xaqiiqigii waa maalka aad hormariso eed aakhiro geysato marka masjidka ilaahay subxaana wa tacaala wuu idin dhawaaqayaa guda iyo dabadba walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad masjidka wax ku bixisaan oo aad ilaahay dartii ugu soo bixisaan insha allahu tacaala aanan maqallo war degdega oo arrintaa ku saabsan xaqiiqatan masaajidda waaweyn oo gobollada kale ku yaalla oo maaragtay saasoo kale lacag intaa ka badan ay ku baxayso $500,000 ayaa waxaa lagu dhisaa waqti yar ayaa lagu dhisaa xaqiiqatan ma garanaya dee dadkeenna ama dabadaha jooga ama dadkeenna gudaha ma gacanta waxoogaa inagu adag masaajid waxaa laga yaaba ka walaalkeena sheega 2 sano ayaynu masaajid iyo manaaradihiisii la rafanaynaa sidaa dadka kale masaajidada wax ugu bixinayaan inaynu wax ugu bixinno oon khayrkaa u tartanno ayaa laynaga doonayaa haddaynu nahay dadka mantaqadan u dhashay gobolkan awdal oo ugu awlaysan oo dadkii ku tukanayay ee ka faa'iidaysanayay ah dadka kale Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa muuqayaga garanaya iyo magacayagaba in ilaahay dartii masjidka lama kala laha ilaahay dartiina uga soo qayb qaataan oo wax ugu bixiyaan insha Allah tacaala noola soo degdegaan macna 30,000 ee labada minaaradood ka dhiman ilaahay waxaan bariyaa subxaanahu wa tacaala inuu sadaqaadkiina sadaqaad jaariya ka dhigo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku karaameeyo awlaadda idinku xifdiyo ilaahay acmaarta idinku barakeeyo cumrigiina ilaahay subxaanahu wa tacaala mashaakilaadka idin haysta iyo dhibaatada idinkaga qaado wixii aad jeceshiin oo dhan ilaahay uu idinku siiyo aad baan idinku soo ducaynaynaa horena idinku soo ducaynay nagala soo xidhiidha telefoonnada masaajidka ee meesha ku qoran si toosaad xataa annaga noola soo xidhiidhi kartaan insha allahu tacaala oo wixii aad noogu soo hagaajisaan masaajidka walaalaha waa soo gaadhsiinaa ciddiina garanaysa marka waxaan leenahay u soo degdega jazaakum allahu khayr وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم